الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال إن شاء الله تعالى وحين هل كان كبلا بدونا تحنا كوبا وإنه كجهل لدونا إن شاء الله تعالى بشر رمضان إنه سؤادا سيدين أقابل لهين أما سيدين وجودي أرجروب لهين بشاس لما قضب أيين كليب كان إن شاء الله تعالى إنه كل شيء جينا oo qofka muslimka ah ugu diyaar garoobaya bisha Ramadaan qodobka koobaad waa toobad keen dhab ah oo qofku Ilaahay u toobad keeno subhanahu wa ta'ala waa diyaar garow qofku bisha u diyaar garoobayo waxaynu taa ka wadnaa toobada waxaynu ognahay waqti walba waa waajib watuubu ila Allahi jamii'an ayyuha almu'minuun ya ayyuha alladhina aamanu tuubu ila Allahi tawbatan nasuha Imam al-Qurtubi wuxuu rahimahullahu ta'ala waa إجماع مسلمين تسكوا وافقسيهين توبدوا إنه واجب تهي إن دم كسر لقى توبد كامل توبدوا مركا رواصاص هو واجب وقت والبا ولا تشوجا يجور والبا ولا تشوجا لكن محين وقاري الله وقت رمضان لو ديار جروبا يعني نقول له هلا توبد كامل حين نقول إن هاي قفكوا مركز معاصدة يدنوب أو إسكير أيه أو قلبي صحيفة دي أي نظيف نقدان أعماش صالحة يا خير كي وناقة أفضل ضاده وحو إيماني يا مركا أصغو رمضان وحو سوق اللي يعضو نظيف أو طوابت كياني أو إسكخف في ذنوبتي معاصي دينا أعماش صالحات كعبا كوانا أكسنانية حداد ألاب سوق كسو إيبسو ربتين تقولي شرحيدو ألاب لديقو إن قولي ألاب تلديقو وحا كهر رأيه هورتا إن قولي ألا نظيفيو مركاسا ألاب عصب إن لديقاي أي سورة قلنا قندونتا أما قروحي سوقولي صواب حيسا haddii laakiin qashinkii hore iyo maaragtay wasakhdii hore iyo wixii isdhexdaadsan yihiin alaabta cusub ee la soo gaday in la dhigay qurux keeni mayso saas oo kale naftaadana adigoo dunuubtii iyo xumaantii iyo ka saaray oo nadiif ah ha ku soo gasha bisha Ramadaan si markaas aad si fiican oo qurux badan ugu qaabishay qodobka labaad oo aynu bisha Ramadaan ugu diyaar garoobayno ku soo dhaweynayno waa inaynu Ilaahay barino subhanahu wa ta'ala Ilaahay ina gaarsiino wad Ilaahay ka barido ka tuugtid Ilaahay oo anigoo caafimaad qaba oo cibaadeysan kara oo ka faa'iideysan kara Ilaahay oo bisha i gaarsiin maalinta Ilaahay ku gaarsiiyana Ilaahay aad ka baridid in Ilaahay kugu kaalmeeyo taacada iyo cibaadada iyo ka faa'iideysiga khayrka tirada badan ee meeshaas yaala labada qodob ayaynu kilibka kan ku koobaynaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.